أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كان ورنيس أبيه وتقانان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيات علي صحيبك رسول كنا عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه أمنا عائشة الله كرها النقضي عن النبي عليه الصلاة والسلام حكسه ورسي قال النبي عليه الصلاة والسلام يري من روحي أحدث كسو دريا كسو بيريا كسو درا في أمرنا هذا أي دينتنا وفي أمركنا كان كود الدين إلهي تبارك وتعالى قف كسو بيريا ما ليس منه وحنا كجر فهو رد ولو علينا انت أنا أيضا نقبضا إن زيادة كدرنا انت هرابة عرضك بضا إلهي إنسان وانفعه ضد حاجة اسكجع البدعوين كي وحاسو ما انت وحنا لو درسن نبح كلية هاي أنا مولود بان دقيا أنا وحسن دقيا ورد وحا سمينيsid diinta ma ku jirtaa maya de waxa inta diinta tilaawo naga badan aad argacliye inaga daa marka xadiiska ma wuxuu dalilu yahay man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa warad qofkii diinta wax ku soo daraa ku soo dariya aanan ku jirin waa lagu celinaya umuna Aisha markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam macallimada ahay Abi Hurayra iyo asxaabta nabiga intay soo baxaan ay guriga ma jireen ayada 10 siin jirtay xadiis fara badan ee nabiga ka soo warisay radiyallahu ta'ala anha wa ardaha حديثك الذي كنتنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل متفق عليه عن عائشة أمنا عائشة الله كرها لهذا عن النبي وحق النبي إنه قصوري قال إنه النبي إن عليه الصلاة والسلام يري أحب الأعمال إلى الله عما الله حق إلهي لقد جعلها إلهي أجعلها تعالى سرية وحوي أدومها عملك لدائمه وإن قل ها يراده وحال laga wada qof wuxuu leeyahay aniga miyaha aniga isniintan soomaya waxaan soomaya khamiistan soomaya ayaan walbeedkan maartay soomaya habeenkii qiyaamul baan tukanaya maalinkii shantiisa quraan akhrinaya laakiin wuxuu sameeyaa ayaaman macduudat ayaamo yar wada dharag laba maalin saddex maalin kadibna ka dhacaysaa waxa kaaga fiican hal arinood yar oo qabsatid oo ku dhimatid oo maxay kamid ah inaad tahay isniin khamiis baan soomay insha Allah kuna adkays ayaa walbeedka ku darso هذا هبينك قيام الليل سوكي كرتيدنا سوكع waxaan tukanayaa waa tiri 20 ka ragcadood ma awoodid waxa fiican wax yar oo aad kiciga maxaa sameyn kartaa 8 ragcadood ko iyo 3 witri ah 12 kaas khalaas ama 4 ragcadood ko iyo 3 witri waxa laga wadaa war amal yar samee oo aadan ka caajisaynin quraanka miyaa 5 juz akhrinina hal juz akhri maalinkii oo aadan ka caajisaynin amalka waxa ugu khayr badan adwamuha midka la daa'imo wa in qalla haba yaraade qof baa arkaysa waxa kule intuu kitaabka bilaabaya xaq kitaabka ka bilaabaya xaq dadka ka bilaabaya 110 isku furaya laba maalin ama laba bir kadib kala yaacaya maxaa ka fiican hal darsi qabso ku daba dhig ha ka harin waxa haba yaraadaane kufr adkow wali ahadiisa umuna Aisha inoo wado ana Aisha radiyallahu ta'ala anha umuna Aisha Allah karan laqade عن النبي وحق النبي كسور قال النبي عليه الصلاة والسلام يري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري أنت هل كان وحوى اسبدلي كتاب كمرك روحه متفق عليه لكن مرك قال روحه صومري كره إلا ولا رواه مسلم أما رواه البخاري وحكى قلت هاي حديث كان وحى لك قال هذا بخاري مرك بخاري مسلم اسكو ميس الراعي ويا بخاري أي لك قال هذا أما مسلم أي لك قال هذا صار لك ولا ولا نعم عن عائشة أمنا عائشة الله كرها هذا عن النبي وحق النبي عليه الصلاة والسلام كسوريسي قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام من نذر قفكي نذرين نذر وتقنان بحيثها إلهي وحاس هدا إسيسيد هي وسومايا قفت أكسون هذا حديث النبي نحوها قفك بخيلك أي نذر وحلوغة قطع إلهي مجعله إلهي النذر كمجعله تذكر حاوينك أرد الوبرا الووا إلى إلهي سبحانه وتعالى إله وحاس واحد دا إسيسيد هدا قور إسيسيد هدا العق إسيسيد هدا أولاء إسيسيد وحان سماني الصون إلهي سبحانه وتعالى بخيلك وحلوغة قطع أظن النذر على دوش هذا كدقين إلهي باري أوله إلهي وحي يسي maxaa nadarkaani dushaada ku saaray laakiin hadda ka dhaco nadarka waa lagu leeyahay hadda wax nadarisid waa waajib عليك waxa ilaahay waxaas marda ma sameynay waa samays waxa laga rabaa inaad nadarka timaad waa inaad soontid waa inaad noqotid yuufuna bin nadri wa kuwa oofiyo nadarkooda waa yakhaafuna yawman maalinkaas aakhirada meesayna ka baqayaan marka nadariga hadii nadar aad gashid waa inaad oofisid waa man ruuxi nadariya an yudiica Allah ilaahay inuu adeeco ayuu nadar ku galay فليضيعه مركز نذر كاس إلهي وكل قلي هكو أضيعه ومن نذر قفك النذرية أن يعصيه إلهي إنه كعاصيه
فلا يعصيه سلاك عاصم ونذر كاس كذا قاجلسا قف على أنمي ها والله ما أنت وحنكو أنسنا عاو صوت انتو وخمرو يا نذر كوجليا بلن بأحد وا دي واحد صح شقينا ما محل قارها مركه نذر كاس نذر حويان أكون دقاقين وحنا لقى دون مايو نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنا عائشة الله كرم لقضي نبينا عليه الصلاة والسلام حكى سوري قال إنه نبينا عليه الصلاة والسلام لا تصبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري حديث كهوري كما البخاري ما لقى هذه ومنا عائشة الله كرم لقضي عن النبي وحي النبي حديث كانت قال النبي عليه الصلاة والسلام يري لا تصبوا وها عاينة الأموات رزقهم كإنتان ولا لي الخوف مركو دول حاجه هبل با لا حول كاسا مجرم بوها فاسد بوها والقف كان اوغو حقيسي ولي وا تاغيه قف كان حق عليه او قف كان نول يا وليهي ايو كلو ليه لما عايه marka حتى haduu mujrimaha oo adduunka kharibay asaga ilaahay tabaaraka wa taala ayu taala خلاص hagelin baabkaas hagelay la tasubbuha aayina al amwata dadkii dhintay fa innahum ayaku qad afdaw way horta laaway waa la hordhigay ilaa ma qad waxay samaysteen waa ka horeeyaan ilaa ma qadamu waa la xisaabinayaa ilaa ma qadamu waxay ay la yimaadeen ee xumaana ama wanaaga way hormarsadeen oo way gudbiyeen ilaa ma qadam waxay hormarsadeen waxa way ka horeeyaan marka ama qab afdal way la kulmaan ilaa ma qadamu wixii ay hormarsadeen cinda Allahi tabaaraka wa ta'ala ee kala kulmayaan marka adii waxa laga baahan yahay qof dhinta maxaa adiga akoonkaagi aakhira uu marsanaya waxa uga qaadanaya adigu ducee maanta asaga ducuka ilaahi subhanahu wa ta'ala qabriga waasiyad inta adiga u dhaadhaamin lahayd way ana aisha radhiyallahu ta'ala anha umana aisha allah karal noqde عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي عليه الصلاه والسلام نبي عليه الصلاه والسلام هو لا يدع مدانا كتجد 4 أفر قبل الظهر صلاه الظهر كور أفر كوسه تجدين ورجعتين لما رجعنا كما تجدين قبل الغداة انتم سواق دلاعين maxaa laga wadaa markaan jilciyo xadiiskan waa xadiis cajiib ah waa xadiis qofkii ku dhaqma anigu naftayda ka bilaabay adiga kula talay qofkii ku dhaqma ilaahay tabaaraka wa taala maalin walbo oo heede oo jannada uu kaaga diyaarinayo bayt nabi wuxuu yiri qofkii ilaaliya 12 ragca 12 ragco bana allah lahu baytan fil janna ilaahay jannada gurigu oga yeegleelaa ee oga dhisa maxay ta marka laba ragco waxay ka horeeyaan ragcatay al-fajr la yiraahdaayo waxay ka horeeyaan salaada subax ka hor halkaas waa labo afar ragcana afar waxay ka horeeyaan oo laba iyo laba ah isku xiriirmaysid laba ragcad tukanaysa waa salaad duhur ka hor waa duhurka ka hor afar ragcad tukanaysa laba tukanaysa waa salaamo naqsanaysa haddana laba kala tukanaysa waa salaamo naqsanaysa halkaas afar way afar laba lagu daray waa lix halka igu hay haddana duhurkii baad tukatay waxaad ka daba geysay laba kale halkaas waa imisa waa 8 way maqribkii baa la gaaray laba ka daba geys waa 10 way cishaay baa la gaaray laba ka daba geysay maxay tahay waa 12 qofkii 12 ka ragcadood ilaa shadaa ilaahi jalla wa ala gurigu jannada oga dhisa maalin kasta mid kale ogow ama mid kaan ogaano markastoo salaad tukatid salaadaha qaarna sunnay leeyihiin qaarna ma lahan salaada casar oo kale sunna kama dambayso salaada subaxna sunna kama dambayso laakiin salaada subax sunnadii haddii kaa tagta tiif labada ragcoo fajarka waa soo qalleen kartaa markaad subax tukatid waad keeni karaysaa iyadoo ku bannaan tahay marka qofka markuu caadaysto walaalayaal inuu sunnooyinka ilaaliyo oo salaad markuu tuko sunno ku darsado waxaa ku kamaayo salaadahaadii oo aakhira markii la tago miisaanka qofka la saaraayo oo miisaanka acmaashiisa loo saarayo ilaahay wuxuu weydiinayaa war ninkan ma leeyahay salaad sunnooyina aan ugu kabnee marka suubis bay ku noqonaysaa marka salaad tukatidba iska tuka salaadaha sunnooyinka raacso adigana waxay ku noqonaysaa mid ku kabto salaadaada wixii ka dhinnaa ee naaqiska ahaa waa tahay ilaahana waafajiyo xadiiska kala uu sugu doon can Aisha radiyallahu ta'ala anha umana Aisha Allah kara noqday qaalat waxay tiri kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabigeena alayhi salatu wa salam wuxuu ahaa yuhibbu midja'al at-tayammuna inuu midigaysto nabiga markuu soconayo dhinaca midigtu ka socon jiray wadada dhinaca ka raaci jiray markuu wax gashanayo midigtu ku bilaabi jiray markuu qabaysanayo midigtu ku bilaabi jiray markuu gaba kama gashanayo masta intuu karayo nabiga midigtu inta badan caadaysan jiray yuhibbu nabiga wuxuu jeclaa sallallahu alayhi wasallam xageebu jeclaa nabiga wuxuu jeclaa alayhi salatu wasalaam at-tayammuna inuu midigaysto masta daaca intuu karayo fi sha'nihi kulli arrinkiisa oo dhan markuu dahaaro qaadanayo weyse qaadanayo tay uu safrayo markii uu maaragtay kaba gashanayo markii uu shalaysanayo
كلها نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها مد صلوات ربي وسلام عليه midigaysto hadday shara noqoto iyo hadday noqoto maarata kabagashi iyo hadday noqoto dhahara qaadasho shanigiisoo dhan midigta markaa shaati gashanaysid markaa xijaab gashanaysid markaa mara gashanaysid midigta horumarso adiga asxaabul yamin ilaah naga dhigo walaalayaal ilaah asxaabul yamin naga dhigo waa tahay xadiiska kale can Aisha radiyallahu ta'ala anha umuna Aisha Allah kala noqday qaalat waxay tiri kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiyana alayhi salatu wasalam wuxuu ahaa yadhkuru allaha mid ilaahi tabaaraka wa ta'ala xuso على كل أحيان وقت كستوى مركا كلياتها ودد مريس وعروت هذه أسقعنت اسكادين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد كلما عرفك إلهي ذكر اسكقني هي رحمتك وسعت فلا ما خيرك وسعت شرط دعيس بلايد دعيس إله وكا حجابية عرفك هكا قوينادو محو هذه اسكيع محاسكيع مستوى مال بس استاكتي سبحان الله الله أكبر الحمد لله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله أفكان عرب كان أنت أسكع مصران لهيد هذا دقاقيس أجر كوجرا دقاقيس أي أجر كوجرا نبينا وكان عليه الصلاة والسلام ديشان نصنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحوها مد إلهي تبارك وتعالى مر البه حسو يذكر الله على كل أحيان مركز مر البه إلهي وحسي تبارك وتعالى حديث كلام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يا ورنيسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حيري ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وكنا نبي نحولي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر لما ركعوا صلاة الفجر كهريسو روايته على ركعة الفجر خير من ركعة كنا نحولي ركعة الفجر ركعة الفجر لما ركعوا كهريسو صلاة الفجر خير وحكي خير بدن تهي من الدنيا أي ما في الدنيا الدنيا وحكي جرا وحكي خير بدن أصعد خير من الدنيا وما فيها دون كان يحكي جرا لما ركعات أيها كخير بدن نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا عائشة الله كان رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحلق سوري قال إنه يري إن الرفق دمرنتو لا يكون في شيء إلا زانه إن الرفق دمرنتو لا يكون ماذا في شيء لما دمري أو لما فوضي إلا زانه ويقر حساه ولا ينزع لجمسيب من شيء إلا شانه ويحلسه وحول بولا دمري فيري dadka fiiraad dadka u imriyo oo hadalka macaan jazakallahu khair ha qofka amar wax xanaaqo uu qaboojiyo qurux baa imaado wax walba la dhimriyo waa illa zaana way quruxsanaysaa laakiin wax walba la adkeeyo way si adkaataayo way si qaab daraataa ilaahay baan ka maangalnay marka nabigeena wuxuu qof latiif ah umada u dhimriyo xadiiska ugu dambeeyay walaalayaal an Anas radiyallahu ta'ala anhu Anas bin Allah kan qadi an nabi sallallahu alayhi wasallam nabigeena wuxuu alayhi salatu qaala wuxuu yiri la yu'minu ahadukum ahadkin iimaankiisa ma dhameystirno la yu'minu ahadukum أحدكين إيمان كيس ما دام يسترنوي كمال الإيمان بالغوضة لا يؤمن أحدكين مرة من ما هذي اللي مرة منين إذا له مرة منين لكن إيمان كان ما دام يستر كمال الإيمان بالغوضة لا يؤمن أحدكين إيمان كيس كامل معها حتى أنت يحبه ولجع هذا لأخيه ولك ما يحبه ولجع ليه لنفسه نفسه حديث كاس عن ودم بيو وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صيام الدعاء